haddii aad aragtid qof soo dhigayo boostiyo badan oo ujeed iyo kajeedo toona lahayn balse aad ka fahantay qayre waa qaar ka mid ah xamaalatada baraha internetka. jabiyihii Puntland iyo Jibriil ayaa ku jeeb iyo jaga waayay jidka uu hayo Xasan Cali Khayre. waa laacibka ku wanaagsan fagaara ka hadalka. waa ninkii 7 daqiiqo aan rafashada lahayn uga haray gaarigii nabad iyo nolol ee 3 sano iyo 8 bilood uu saarnaa. fadlan si aad u heshid xogtaan oo dhammaystiran iyo xogo kale oo qarsoon leeg saar muuqaalka siina sheer garee si ay asxaabtaaduna uga faa'iideystaan xogtan. ninkii siyaasiyiinta mucaaradka ay ugu yeeri jireen saqiirka siyaasadda waa ra'iisul wasaarihii 3 sano ee uu xilka hayay samaysan waayay saaxiibo siyaasadeed oo kolkii dambe wasiiro ka tirsan xukuumaddiisu ay 7 daqiiqo isku dhaafiyeen. ninkii 3 sano iyo 8 bilood oo uu ra'iisul wasaaraha ahaa jahayn waayay siyaasadda xukuumaddiisa oo ku fashilantay qabashada doorasho qof iyo cod waa Xasan Cali Khayre oo mar kale raggii uu lahaa shalay waa qabqablayaal aan loo joojin doonin bartanka uga jira isagoo raadinayo hoggaanka dalka fariimo iyo hanjabaadyana u dirayo saaxiibadiisii hore. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo hadda sheegay inuu u sharaxan yahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ololihiisii ugu weynaa ka bilaabay Facebook. dhammaan dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada kuwa ugu firfircoon dhalinyarada Muqdisho ayuu Khayre qarashaad xad dhaafa ku siinayaa aflagaadada hoggaanka dalka iyo inay asaga buunbuuniyaan isagoo qarash ku bixinayo. haddii aad aragtid qof soo dhigayo boostiyo badan oo ujeed iyo kajeedo toona lahayn balse aad ka fahantay qayre waa qaar ka mid ah xamaalatada baraha internetka. jabiyihii Puntland iyo Jibriil ayaa ku jeeb iyo jaga waayay jidka uu hayo Xasan Cali Khayre. waa laacibka ku wanaagsan fagaara ka hadalka. waa ninkii 7 daqiiqo aan rafashada lahayn uga haray gaarigii nabad iyo nolol ee 3 sano iyo 8 bilood uu saarnaa. fadlan si aad u heshid xogtaan oo dhammaystiran iyo xogo kale oo qarsoon leeg saar muuqaalka siina sheer garee si ay asxaabtaaduna uga faa'iideystaan xogtan. ninkii siyaasiyiinta mucaaradka ay ugu yeeri jireen saqiirka siyaasadda waa ra'iisul wasaarihii 3 sano ee uu xilka hayay samaysan waayay saaxiibo siyaasadeed oo kolkii dambe wasiiro ka tirsan xukuumaddiisu ay 7 daqiiqo isku dhaafiyeen. ninkii 3 sano iyo 8 bilood oo uu ra'iisul wasaaraha ahaa jahayn waayay siyaasadda xukuumaddiisa oo ku fashilantay qabashada doorasho qof iyo cod waa Xasan Cali Khayre oo mar kale raggii uu lahaa shalay waa qabqablayaal aan loo joojin doonin bartanka uga jira isagoo raadinayo hoggaanka dalka fariimo iyo hanjabaadyana u dirayo saaxiibadiisii hore. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo hadda sheegay inuu u sharaxan yahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ololihiisii ugu weynaa ka bilaabay Facebook. dhammaan dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada kuwa ugu firfircoon dhalinyarada Muqdisho ayuu Khayre qarashaad xad dhaafa ku siinayaa aflagaadada hoggaanka dalka iyo inay asaga buunbuuniyaan isagoo qarash ku bixinayo. waxaa Muqdisho ka jira tiim dhalinyaro oo isku xiran kuwaasi oo Facebooka ka amaanayo isla markaasina halkii boosti ay soo dhigaan lagu siinayo lacag cadadkeeda lagu sheegay $100. dhalinyaradan ayaa ku jira group WhatsApp oo kolba fariin ama muuqaal ay baahinayaan loo soo dhigayo waxayna sheegeen in dhaqaale badan ay ku qaadanayaan iyaga oo iska dhigayo inay taageersan yihiin Xasan Cali Khayre. qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa ii xaqiijiyay in sharuudaha qofka doonayo inuu ka mid noqdo dhalinyarada laga doonayo in maalinkii 7 boosti uu soo dhigo Facebookiisa isla markaasina qofka commentiga Khayre ku dhaliila uu ribalay ugu galo jawaabo kulkululna uu siiyo. haddii aad aragtid qof soo dhigayo boostiyo badan oo ujeed iyo kajeedo toona lahayn balse aad ka fahantay qayre waa qaar ka mid ah xamaalatada baraha internetka. siyaasaddu waa ka salweyn tahay oo waa ka mug weyn tahay sax. siyaasaddu waa inaad la timaado aragti siyaasadeed qorshe aad ku hogaamin kadhid dalka haddii aad ku guulaysatid. ma la socotaa caafimaadka siyaasigii iska dhigay inta aan la dooran madaxweynaha Puntland oo qarashkii ugu badnaa ku bixiya Facebook in laga buunbuuniyo
jabiya waxa uu ka mid ahaa musharaxiinta madaxweynaha Puntland balse ka hor doorashada ayuu aaminay in asaga uu yahay madaxweynaha Puntland mase dhicin fadlan si aad u heshid xogtan oo dhammaystiran iyo xogo kale oo qarsoon leeg saar muuqaalka siina sheer garee si ay asxaabtaaduna uga faa'iideystaan xogtan waa Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq dhinaca farsamadana waa saaxiibkay Moojo Diiriye